waxaan rabaa halka inaan ka cadeeyo inay Puntland garab iyo gaashaan ugu noqonayso dawladda Jubbaland oo goosatay inay doorashadeeda sida sharciga iyo nidaamkeedu yahay ku qabsato waxaan ku boorinaynaa guddiga doorashada ee Jubbaland inuu doorashada Puntland Jubbaland waxaan ka xumahay muddo dheersiga hore u dhacay oo runtii xilligaas inaan anagu ka hadalno aysan munaasab noo ahayn duruufiyahan ku jirnay waxaan maanta halka rabaa inaan fariin ugu diro dhammaan mas'uuliyiinta dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah mas'uuliyad baa ka saaran ilaalinta dastuurka ay lagu doortay dastuurka dawladaha Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa mas'uul ka ah madaxda loo doortay ee dawladahaas dawladda federaalku waxay ku korjoogtayn doontaa haddii dastuurka ay dhigteen ay hareer maraan laakiin dawladda federaalku ma aha laha awood iyadu ay ku baajiso ama ay ku ogolaato ama doorasho ama xeerar kale oo dalkaasi deegaanadaas ay leeyihiin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaysan isku khaldin awoodaha dawladda federaalka iyo awoodaha dawladaha xubnaha ka ah Puntland anoo magaceeda ku hadlaya waxaan diyaar u nahay inaan kaalin mugle ka geysano dhismaha qaran Soomaaliyeed oo sharci ku dhisan mar walba waxaan u helinaa waa sharciga iyo dastuurka dad baa moodaya Jubbaland waagi horeeto inaan ehelnimo u taageernay muddadii u dambeeyay waxa la lahaa Puntland iyo Jubbaland ma wada socdaan maanta waxaan ku taageeraynaa sharciga u soo noqdeen kuma taageerayna ehelnimo sharciga saldhig ah sharcigaan ilaalinaynaa federalismka ilaalinaynaa madaxdu waa bini aadan waa khaldami kartaa waana saxmi kartaa laakiin waxa haraya waa buuga waxa ku qoran oo dastuurka ah oo sharciga ah oo hadii laga bedelayo waxna si wadar ogol looga bedelo